isbeddelka cimiladu waa caqabad caalami ah oo adduunyadu ay wajahayso qarnigan una baahan xal caalami ah. guud ahaan waxa waaye isbeddelka markaad fiiriso fatahaadaha ama abaaruhu waagii hore waxay dhici jireen 10 sano oo mar, laakiin hadda markaad fiiriso waxay u soo noqdeen hadda waxay dhacaysaa 2 sano inay mar dhacdo. dhibaatooyinka haddii aan magaalooyinka aan lagu beerin dhir ka dhalan karo waxa ugu horeeya waxa waaye maaragtay kulaylka xilliga roobaadka oo xitaa maaragtay uu sii yaraado, dabaylaha waqtiga ay kacaan oo maaragtay dhibaatooyin badan guryaha iyo maaragtay dadka iyo maaragtay u geystaan sababtoo ah dhirtii wax ka dabayshii wax ka celinayo ma lahan. fursadihii nolosha oo yaraaday dadkii waxay ku khasabtay marka in uu qof walba wuxuu nolol ka raadin karo uu sameeyo, waxaana u badnaatay ee dhacday in dhirtii la aado oo mashiinno loo keensado oo dhirtii la xaalufiyo si looga shida dhuxushaasna loogu dhoofiyo wadamada gacanka ah. dhuxusha waxaa la yidhaahdaa qansax iyo geed galoo la yidhaaho iyo cadaad intaba waa la soo jaraa waa la soo shidaa, annaga dadkii soo shidaan ka soo iibsanaa, annaga markii noola keena haddana waa soo iibgeyna haddana sidee fisooniya sidee ku keeno. dhibta ay leedahay waa ognahay dhirta, laakiinse dadka daruufa u geystay inay macnaha qontalyoon ay ka raadsadaan shaqo maadaama shaqo kale aan la haynin. dhiblo waa ku qabnaa annaka naftirkeenna xoolaaleena markii aan haynay xoolihii maadaama ay naga dhammaaday haddana ii sheeg hadda waddankii haddana geedihii waagii hore aan harsan jirnay haddana dib badan u jarnaa oon manaafaadka sii raadin. shaqada haddii mid kaleeto ilaahay beddelkeeda isii waa ka shaqaysaa, laakiinse hadda wax camal kaleeto ahay ma laha iidaas aan hadda camal aan u raacdayn. sanad walba waxaan beeraa 1,000 geed 2018 1,000 geedaan beernay 2019 17 abriil maalintii dhiraynta Soomaaliya iyadan sidaas oo kale 1,000 geedaan diyaarinay. marka sanadkan ilaa iyo gobollo badan aan gaarsiinay, gobolladii badnayd waxyaabahan ka faa'iidnay waxay inaan dadka baro sheego inay maaragtay ka faa'iideysan karaan. waxaan rajaynayaa inaan ka badan qaban karo haddii aan helo dad ila shaqeeya dareenkaa ila leh. waxaan qaban doonaa tartan series oo tiro badan, waxaa ka mid ah tartanka farshaxanka, halkaas oo aan tartan siin doono 10 ka mid ah iskuullada magaalada Muqdisho oo ay ku tartami doonaan qoraalka artista iyo farshaxanka oo qayb ka yahay barnaamijka wacyigelinta guud ahaan aan ka wadno iskuullada magaalada Muqdisho. saddexda arday u sareysan waxaan siin doonaa abaalmarin oo u noqon doonta dhiirigelin iyo wacyigelin isugu jirta. rajadu aad u fiican tahay sanadba sanadka ka dambeeyo 5 sano kadibna waxaan rajaynaynaa haddii la yidhaahdo ay dadku badankood u wareegi doonaan inay isticmaalaan isticmaalka gaaska dabiiciga ah. rajada aad ay u fiican tahay deegaanka mustaqbalka 5 sano soo socota haddii la yidhaahdo.